kulanti wacan daawadayaal halkan waa janalka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal warbixin gaar ah oo aan kaga hadlayno saameynta ka dhalan karta xilka qaadistii Khayre Itoobiya oo loogaaday in ay kaalin weyn ka qaadatay xilka qaadista lagu sameeyay ra'iisul wasaare Khayre iyo mas'uul diiday in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha uu baneeyay hadda waa kee mas'uulkaasi warbixintan ayaynu ku falaqayn doonaa shaylatanka bishan July oo shalay ku beegneyd ayaa xildhibaanada golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo golihiisa wasiirada taas oo dhaqso u yiday madaxweynaha Soomaaliya ama uu soo dhaweeyay xilka qaadistii lagu sameeyay Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa haddaba arintan sidee ay u saameyn doontaa shirkii lagu ballamay ee Dhuusamareeb maxaa ka dhalan kara siyaasiyiin ayaa ka aragti duwan madaxweynaha Soomaaliya falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegaya in tallaabada ay qaadeen baarlamaanka Soomaaliya oo na taageeray madaxweyne Farmaajo tahay mid lagu carqaladeynayo heshiiskii Dhuusamareeb 2 ee soo baxay 22kii July 2020 taa beddelkeedana madaxtooyada gadaal ka riixayso muddo kororsi loo sameeyo madaxweyne Farmaajo iyo golaha shacabka ee baarlamaanka madasha xisbiyada qaran oo ka hortimid xilka qaadistii lagu sameeyay Khayre ayaa si la yaab leh uga hadlay xilka qaadis degdeg ah ee lagu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaana ay sheegeen in ujeedka xilka qaadis ay tahay carqaladeyn la rabo in lagu sameeyo go'aanadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb madashu waxay u aragtay leeyahay kalsooni kala noqoshada xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in ujeedadiisu ahayd carqaladeyn iyo burburin go'aanadii shirkii Dhuusamareeb isla markaana ay tahay mid loo gogol xaarayo muddo kororsi xaaraana sida ay sheegeen madasha xisbiyada qaran madaxtooyada ayaa eedaasi iska fogeysay waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay Villa Soomaaliya lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu adkeynayo qabsamida shirka Dhuusamareeb sidoo kalena la ixtiraamayo in la fuliyo qodobadii ka soo baxay shirkaasi bayaankan oo aynu aragnay nuqul kamid ah ayaa lagu sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho waqtigeeda ku dhacda oo lagu wada qanacsan yahay waafaqsanna sharciga doorashooyinka dalka sida ku cad bayaanka madaxda dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaan weli ka hadlin tallaabada xilka looga xayuubiya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya aqalka sare ayaan weli dhankiisa hadlin tallaabada ay qaadeen golaha shacabka iyadoo madaxweyne Farmaajo howshiisa sii wadista howlaha xukuumaddu u magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar inuu sii wado shaqada inta laga soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ahaa madaxa shirkadda shidaalka ee Somali Oil and Gas ayaan weli ka hadlin xilka qaadista ay ku sameeyeen golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Xasan Cali Khayre waa muwaadin ee dhalashada Norway waxa uu mar ka soo shaqeeyay macallin dugsi hoose oo Norway ah sidoo kalena waxa uu ka soo shaqeeyay golaha qaxootiga Norway ka hor inta uusan ku biirin sahminta tamarta Ingiriiska ee Som Oil and Gas wuxuu iska casilay shaqadii Som Oil isagoo ahaa agaasimihii fulinta ee qaaradda Afrika si uu u qabto xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu xilkaasi hayay ku dhawaad 3 sano iyo bar Xasan Cali Khayre oo 3 sano ee la soo dhaafay si weyn uga soo muuqday fagaarayaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa xilka qaadisiisa loo aaneynaya khilaaf soo jiitamay muddo oo ka dhaxoogna xukuumaddiisa iyo madaxweyne Farmaajo taas oo salka ku haysa waqtiga iyo nooca doorashada soo socota ee Soomaaliya iyo sidoo kale hankiisa siyaasadeed ee doorashada dalkan 2020 dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in xilka qaadista Khayre ay saameyn weyn ku reebi doonto siyaasadda guud ee dalkan isla markaana ay horseedi karto carqalad iyo sidoo kale khilaaf hor leh oo ka dhex abuurma dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo xisbiyada mucaaradka ee dalkan Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya oo markii horeba cakirneed oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka ayaa markan dhan kale isku rogtay waxaana dabeyl siyaasadeed ee ruuxday Soomaaliya kadib xilka qaadistii degdeg ah ee lagu sameeyay Xasan Cali Khayre xilka qaadistiisan waxaa si aad ah kaga hor yimid xubno ku dhow oo ka tirsan xukuumaddiisa sida wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistii Khayre sidoo kale xogaan ogaana ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo markii uu ka soo baxay Dhuusamareeb uu soo maray dalka Itoobiya gaar ahaan Addis Ababa halkaasina uu kulan kula soo qaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed xogahan lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sidoo kale noo cadeeyeen in xilka laga qaado
ra-iisul wasaare khayre si muddo kororsi u helo madaxweyne farmaajo iyo golayaasha sharci dejinta ee dalkan Soomaaliya. Farmaajo oo ka duulaya go'aankii Abiy uu la qaatay ayaa durba soo gaaray magaalada Muqdisho isagoo isla habeennimadiina bilaabay olole iyo qorshe ka dhana khayre inta uu ku sugan yahay Dhuusamareeb, taas oo shalay dhacday in xildhibaanada oo aan ka warhayninba ajandahana aysan ku jirin lagu soo daray markii dambe u codeynta xukuumadda iyo sidoo kale kalsooni kala noqoshadeeda, taas oo ugu dambeyn xildhibaanadu ay isku raaceen in codka kalsoonida ay kala laabtaan khayre iyo xukuumaddiisa. siyaasiyiinta qaarkood ayaa sheegay in damaca waalan ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay gadaal ka riixayso Itoobiya iyo Qatar uu dalkan u horseedi karo burbur iyo qalqal siyaasadeed. haddaba markii xilka qaadista khayre la shaaciyay waxay soo tiriyay siyaasiyiin dhowr ah oo la hadalhayay kuwaas oo suuragal ay tahay in booskan laga riixay Xasan Cali Khayre lagu bedelo, balse waxaa la yaab noqotay markii siyaasi rugcadaa oo ka hadlay in uu la soo xiriiray Farmaajo laguna wargeliyay in laga dhigayo ra-iisul wasaaraha, balse isagu taa uu ka biyo diiday. haddaba waa kee siyaasigaasi? madaxweyne Farmaajo ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Prof Cali Khaliif Galeer oo horey u soo noqday ra-iisul wasaare, sidoo kalena ahaa madaxweynihii maamulkii Qaatuma, balse markii dambe la heshiiyay Somaliland. sida uu isagoo ku qoray bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga, Prof Galeer waxa uu sheegay inuu iska diiday xilka ra-iisul wasaaraha loo magacaabayo kadib markii Xasan Cali Khayre codka kalsoonida ah laga noqday. ayuu sheegay Prof Galeer in uu arrimo jiro awgeed diiday isagoo dalka u turaya. Prof Cali Khaliif Galeer waxa uu ku yiri qoraalkiisa Facebook-ga, waxaa qadka telefoonka igula soo xiriiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ka cudur daaranayaa inaan waqtigan diyaar u ahayn inaan ka mid noqdo buundada laga gudbo caqabadaha jira waqtigan, ayuu yiri Prof Khaliif Galeer oo ka hadlayay xilkan Farmaajo u soo bandhigay. waa siyaasigii ugu horeeyay ee diiday 6 bil dhiman inuu dhameystiro xukuumadda, inkastoo Mahdi Guuleed Qatar si ku meel gaar ah xilkan loogu sii igmay inuu sii wado sina shir gudoomiyo howlaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka. marxaladda siyaasadeed tii ugu weyneed ayuu dalkan galay iyadoo weli la sugayo waxa xigi doona kadib Khayre oo ka hadli doona arrintan. dhinaca kale, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu ka hadlay wixii ka dhacay xarunta golaha shacabka, sida xogtan inuu ku helnay. xukuumadda waxaa la sheegay in hoggaankeedii ay soo dhaweyn doonaan go'aankii golaha shacabka ee shalay ka soo baxay. la taliyayaal la shaqeeya Xasan Cali Khayre ayaa inoo xaqiijiyay in Xasan Cali Khayre uu aqbali doono wixii dhacay ama ka dhacay xarunta golaha shacabka ee xilkii laga xayuubiyay. waxa la sugayo kaliya waa in ra-iisul wasaare Khayre uu saxaafadda ka hor hadlo, shaaciyana go'aankii siyaasadeed ee ku aadan xilka qaadista iyo inuu aqbalayo mooshinkii xilka looga qaaday ee golaha shacabka. sidoo kale qoraalka subax madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa lagu yiri kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka uu shaaca ka qaaday in xilka laga qaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, taas oo madaxweyne Farmaajo uu soo dhaweeyay. wareegtada madaxweynaha ayaa ku saleysan inaanu hakad gelin qorshayaasha dowlad dhiska iyo horumarinta dalkeena tan iyo inta madaxweynuhu ka soo magacaabayo ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumad tayo leh oo si dargelisa xaqiijinta ididilada shacabka Soomaaliyeed. lagu yiri qoraalka soo baxay Villa Soomaaliya laga bilaabo faafintan sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah, waxa uu ku siimay ra-iisul wasaare mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qatar awoodna u yeelanaya hagidda howlaha xukuumadda inta laga soo buuxinayo, ayaa la yiri xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale qoraalkan ku ballan qaaday in ay ka go'an tahay dhaqangelinta qodobadii shirkii Dhuusamareeb iyo in dalka laga qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda. dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyay aynu ka helayno Villa Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in kulamo kala duwan oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed dalka ay ka soconayaan, isla markaana xalay ay ka dhaceen madaxtooyada Soomaaliya kulamo arrintaas looga areensanayo iyo qaar ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho. kulamadan ayaa kuwa iska soo horjeeda oo qaarkood lagu taageerayo xilka qaadista ra-iisul wasaare Khayre, halka kuwa kalena ay yihiin kuwa looga soo horjeedo. tare xildhibaanaha ayaa sheegay in go'aankii xilka looga qaaday Xasan Cali Khayre uu ahaa mid aan waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka dalka, maadaama xataa aan lagu darin ajandaha kulanka xildhibaanada. ra-iisul wasaare Khayre oo soo gaaray Muqdisho ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo dhawaan go'aankiisa ku aadan xilka qaadista lagu sameeyay, isla markaana ka hadli doona saacadaha soo aadan sida xogta aynu ku helnay.
sidoo kale guuxan siyaasadeed ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka ee dalka iyadoo sidoo kale siyaasiyiinta iyo xisbiyadan ay sheegayaan in xilka qaadisan degdegda ah ay ka dhigan tahay muddo kororsiga uu doonayay Farmaajo iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan oo iyagu u heshiiyay in qayri xukuumaddiisa meesha laga saaro si mucaaradka loogu qanciyo in ay yimaadaan ra'iisul wasaare sida awgeedna madaxweynaha iyo xildhibaanaduba ay helaan 2 sano oo extension ah muddo kororsi ah inkastoo arrintaas si aad looga digayo xaaladda guud ee Soomaaliya hadda waxa ay maraysaa allow sahal umuuraha waxaana hadda dalku isku bedelay buuq iyo jahwareer siyaasadeed kadib xilka qaadistii Khayre waxaana soo ifbaxaysa duduleelo hor leh oo ku soo furmaya madaxweyne Farmaajo isagoo markii hore la dala dhacay khilaafka dowlad goboleedyada sidoo kalena maara u laa mucaaradnimada xisbiyada qaarkood ee dalka ayaa haddana waxa ku furmatay mowjad kale oo siyaasadeed oo ku aadan Khayre oo wata saameynta siyaasadeed sidoo kalena arrintan waxa ay gilgilaysaa masraxa siyaasadda Soomaaliya haddaba waxa aynu sugnaa daawade waa wax xiga ee ka soo bixi kara kadib xilki qaadista Khayre ra'iisul wasaaraha sama aqbali doona xilki qaadisiisa mise waa ka soo horjeesan doona guud ahaanna daawadayaal waa naga inta warbixintii gaarka ahayd ee aan kaga hadlaynay saameynta ka dhalan karta xilka qaadista Khayre iyo Itoobiya oo loogaadeen kaalin weyn ay ka qaadatay tan iyo kulan dambe nabadgelyo.